mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer oo kulan wareed ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay shaqaqadii xalay ka dhacday magaalada Burco ee sababtay dhibashada hal ruux iyo 5 ruux oo kala dhaawaca sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee gobolka Togdheer. xubnaha xisbiga wadani ee ka hadlay kulan wareedkaasi ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ee guud ahaan gobolada Somaliland inay ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeynta Somaliland rabbi ku manaystay isla markaana ay ixtiraamaan baaqyada ku aadan nabadda ee madaxda xisbiga wadani waxaana kamid ah hadaladoodii. shirka jaraa'id wuxuu daaran yahay inaanu kaga warbixino gobolka Togdheer waxaanu ayeedsanahay waanu ku taageersanahay musharaxa madaxweynaha aana gudoomiyaha xisbiga baaqi waxa la jeediyay ee u jeediyay komishinka qaranka iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan ummadda reer Somaliland waxaanu leenahay taageerayaasha gaar ahaan gobolka Togdheer istajiya nabadgelyada inoo ilaaliya aanaynu ka warsugno musharaxeena madaxweyne baaqiisana aan ixtiraamno ilaahay ugu mahadnaqaya amniga iyo istiqraarkooda siiyay waliba dunida wax weeyaan nidaam beelihiin nidaamkooda hadii laga duwana way xumaadaan waxaan u sheegayaa taageerayaasha sharafta leh ee xisbiga wadani Soomaaliland meel kasta joogaanba xisbigu xisbi qaran weeyaan cidna gaar u yahay ma jirto wax kasta oo xisbigu leeyahay cid ka duudsi karta ma jirto annaka u taagan dadweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan leenahay nabadgelyada aynu ilaashano booliska Somaliland waxaan ugu baaqaynaa marka rabshado dhacdo aan dadka rasaasnoo lagu dhifan waxaynu ognahay goobo fara badan in xisbigu ashkateeyay abashooyin badan ma keenay komishanka wax allaaliyo wuxuu ka qabtay ma jirto ee labada jeer uu tagay gudoomiye xisbiga oo ah musharaxii xisbiga iyana way ka wasqaadi waa sidaadaradeed annagu waxaan u aragnaa dhibaatada dalka ka dhacday inay ka mas'uuliyeen komishanku dadweynaha reer Burco ama gobolka Togdheer ama reer Somaliland waxaan leenahay nabadgelyadeena aynu ilaashano rabshadana aynu joojino ciidamada biliiska gobolka Togdheer isticmaalayay rasaas dilaaya ka isticmaali lahaayeen deemishka imikana wax dhaqdhaqaaqa sameeyay jirina nabadda inoo ilaaliya natiijo kasta oo xaaraan oo aan cadayna ma aqbali doono ishiimaatakii dadkuna wuxuu bilaabay in rabshadi dhacdo waxa ka mas'uulaha oo dusha ku qaadanaya booliska waxaana mas'uuliyadda ku sii daba taagan komishinka qaranka oo iyagu kalifay inay dhageysan waayaan cabashadii xisbiga wadani wixii halka ka dhacay booliska ayaa shaqo ku lahaa laantaas wadanooma haddii cadaalad noqoto cadaalad u dhacdana tee waa barcad iyo barmadoowe waynu ku samraynaa halkan jaraa'idan maanta qabanayna wuxuu daaran yahay shaqaqadii ka dhacday gobolka Togdheer shalayto komishinka cadaalad baa lagu kala badinay hadii cadaaladna laga badiyo waan hambalyeynaa waan ogan lahay arinta musharaxana si adag baan u taageeraynaa Ali Daahir Maxamed Boos TV Caalamiga Universal Burco.